بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore ilaahay baa mahad u sugnaatay alxamdulillahi rabbil aalamiin marka xigta waxaanu salaamaynaa oo sharaf mudan dhalinyarada noo soo gurmatay sida ay warka iyo ahwaasha nooga qaadaan insha Allah aad baanu salaamaynaa salaamta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh marka xigta halkan waa karaksharkii gurigan aan hadda joogno waxa macalul ugu dhimatay dorhaato inaan yar oo 12 jir ah ayaydeed oo raqa waa tan dhinacayga fadhida inaan yar oo isaguna aan waxba la noolayn waa kan dhinacayga fadhiya meeshan oo la yaho karaksharka waxa taala macalul baan oo aan indhoweyd wax dhadhama ah laga helin caalamka hantidoodina dadkii waayay ay yihiin meeshana ku soo urureen kana kooban 620 reer dayacna aad u haysto siina kala liitaan macaluushina ay horaantooda u ilaatay sida islaantan igu dhow oo hadda gaajo iyo geeridii la ildaran kan yare igu xiga oo isaguna lamida oo sakaraad taagan sida awgeed waxaanu ka codsanaynaa bulshada caalamka dawladda hay'adaha dawliga kuwa khayriga ilaahay inuu noo soo kiindiro dadkana aasi gurmad degdega waxa uu la soo gaadhaan xilligu ka horeeyo si degdega inay wax la soo gaadhaan waanu codsanaynaa cidina uma maqna eela uma qodna dadkuna waxana horaantoodii way baxday wixii kalena way liitaan waxaanu codsanaynaa dawladda iyo hay'adaha dawliga iyo kuwa khayriga si degdega dadkan waa tabaalaysan waa taabsan yahay inay si degdeg wax ula soo gaaraan assalaamu alaykum ta'ala wa barakatuh ururka dhalinyarada ee saxaafada iyo warbaahinta noo keenayna aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala